inkastoo mahadhooyinku yihiin qaarkood qaar aan la mahadin haddana waxay noqotay mid ay garba siman ku kala dareeraan. waa labadii la isugu bineeyay carrada Allianz Arena ee Real iyo Bayern Munich. habeenada kale ka duwan semifinalka xiisa badnaa kuwii hore oo ay waqtigaasi wacdara dhigeen Vinicius iyo Harry Kane oo isaguna doonaya sanadkan inuu goblanka ka baxo halka Real ay u socoto in iyaduna ay sii dhigato wacdarihii ay aabaya macmiilka uga ahayd jaambaha. kulan la isku riiqmay siday tahay in la isugu jawaabay ayay ahayd mid kastaana falsafadiisa cabqarinimo ayay labada macallin wada ciyaareen taasoo ka dhignayd in weli kulanka dambe la isu yahay kuwo aan la kala oran karin. carradu waa carro kale. Real iyo Bayern la garba siman 2-2 ayay ku kala baxeen lugta hore ee semifinalka Champions League. kulan ay isku rafaadeen oo ay ku heshiiyeen in natiijada labada kooxood ay u dhigtaan halka lagu go'aaminayo qalcadda Santiago Bernabeu. Real Madrid ayaana goolka ku hormartay xilligaasoo jamaahiirtii Bavarianka ee cascasaa wadna garaaco ku bilaabmay, laakiin Bayern ayaa laba daran dooriyaha ugu bedeshay ka hor intii aanay kooxda martida Los Blancos aanay helin rikoodho uu gool u bedelay Vinicius. markii Real goolka dhalisay waxay walaayada qaatay waqtigaasi xidigaha kooxda Bayern oo ku yiri jamaahiirtooda waxba ha warwarina. ciyaartan oo ay kooxda Bayern ku bilaabatay si xoogan oo ay kubadda ku maamuleysay isla markaana samaysay fursado badan ayaa waxay isku muujiyay xidiga Vinicius soo noqday laacibka Real Madrid u horseeday inay guul darro ka badbaadaan halka Harry Kane uu isaguna dhameystiray rikoodho lagu maamusay. waxse kulanka la isku raagin markii uu bilaabmay daqiiqadii 24 ayaa kubaddu khadka dhexe ka farsameeyay mucjisada cabqarinimadu inta badan ay lafihiisa ku jirtay Toni Kroos xilligaasi oo uu kula hadlay faraha gaagaaban taleefanada la isaga garaaco. Vinicius uga dhex dusiyay meel albaaba ballaqan kadib markii uu jiheeyihiisu oo dhinaca qaldan u dilmaamay xidigihii waqtigaasi shaqadoodu ahayd in ay xidigan baaskiisa raacdaan cidda uu ku manaynayo. goolhayo Manuel Neuer ayuu ula tagay Vinicius oo shabaqa waqtigaasi ku hubsaday kubadda, waxaanu goolkani ahaa midka keliya qaybta hore lagu kala calaf qaaday. halka markay marayso qaybta hore maadin isdul taagno waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ahaa shot on targetka ay sameeyeen labada kooxood. ay Bayern 8 samaysay 2 ku aadisay halka Real ay ka samaysay 2 midna ku aadisay. kubadaysashada 3% Bayern ba ahayd halka 47 ay Real ahayd. koornayaashu Bayern waa 3 Real waa 4. halka waxay ka tusinaysaa talaabo kasta iyo kubad kasta agteeda soo gashay Real inay ama koono u baxaysay ama ay runtii ahayd mid meeshii la rabay ku dhawaanaysa. faawlada la kala galayna waa 5-2. runtii waxyaabaha la yaab kale waxa ka mid ah Bayern halkay 8 iskaga dayday 2 ku aadisay, Real 2 ku isku dayday inay goolka toogato hal mid ay ku aadisay halkii midna muxuu noqday ka goolka dhashay. xidiga Leroy Sane ayaa dhowr darbadood ku toogtay goolka halka Toni Kroos uu darbad xoogan oo masaafo ku dhow ka tuuray goolhayo Neuer la helay gacanta oo uu ka joojiyay goolkaasi. markii lagu soo noqday qaybta labaad ayay Bayern Munich walaayadii ay ka soo qaaday taageerayaashooda si xoojisay weerarkeeda maadaama gool lagu lahaa iyadoo garoonkooda joogta, waxaana dhowr kubadood oo ahaa madax ka qabtay goolhayo Lunin oo laf dhungashay ku noqday. balse daqiiqadii 53aad xidiga Leroy Sane ayaa jabiyay darbiga difaaca Real Madrid xilligaas oo wadiiqo loogu talagalay xamuulku inay maraan oo aan la arkaynin uu isagu samaystay kadibna ay waqtigaasi daawada ka noqdeen xidigihii u idmana inay hawshooda xidigan ka qabsadaan. waxaana kubaddu la soo galay dhinaca midig uu la yimi xerada ganaaxa dhexdeeda kadibna waxa uu ogaaday inay tahay bartii waajibkeeda lagu marinayay. darbad xoogan ayuuna goolka ku toogtay isagoo wax yar waqtigaasi ula jira weydiiyeyna goolhayo Lionel magaciisa isagoo aan jaleecin ayuuna shabaqa ku hubsaday ciyaartana ka dhigay 1-1. waxse la isku raagin 4 daqiiqadood kadib ayay Bayern Munich loo dhigay rikoodho markii Lucas Vazquez uu qalad ku galay Jamal Musiala, waxaana rikoodhadani loo saartay inuu waqtigaasi u bedelo gool Harry Kane oo dhinaca qaldan u diray goolhayo Lunin. Harry waxay ka dhigan tahay ilaa imika inuu bandhigiisii quruxda badnaa ee Bayern uu ku jira balse uu koob la'aan yahay midka keliya u hadhayna uu jaambahan yahay hadduu ku abaar bixi karo. Bayern oo umaleynaysa inay guulaysanayso ayaa waxaa dilay go'aan qaldan oo qaatay difaaca reer South Korea Kim Jae oo qalad ku galay Rodrigo Goes dhamaadka ciyaarta oo 7 daqiiqadood ka harsan yihiin. waa markaan ku leeyahay mahadooyinka laga dhaxlaa cawska cagaaran maaha qaar la mahadiyo. adigoo ismahadiyo oo haysta inaad guushi heshay ayaa mid baasoo kuwan ku ciyaaraya bila go'aan ku tiri qaldan qaade meel baas wax kaaga keenaya. Vinicius Junior ayaana gool u bedelay rikoodhada daqiiqadii 83aad waxaanu toogtay bartamaha goolka halka Neuer isku tuuray dhinaca midig. sidaas ayayna ciyaartu ku noqotay garba siman sidii la isugu yimi 2-2.
labadan kooxood ayaana lugta labaad wada ciyaari doona Arbacada toddobaadka dambe iyagoo aan nasanin waxaana soo gudbi doonta kooxda guuleysatay waqtigaasi natiijada garoonka Santiago Bernabeu ku go'aamisa. haddaba kulanka inuu si gaar ah isu dul taagno. Harry Kane waxay uga dhigan tahay 43 geem oo uu ciyaaray kooxda Bayern Munich, 43 gool inuu siiyay 11 oo caawiye ka noqday. sida guud markaynu eegno labadan kooxood kulamadooda 12 waxa badisay kooxda Real halka 11 ay badisay Bayern. Real way diiday in la barbareeyo dhinaca guulaha, Bayernna sidoo kale way gaari weyday. waxa lagu hijiyay khadiidada dhexe in laga dhigto 4. sawirkan waa ciyaarta ka hor 4 barbaraabay markaa noqonaysaa iyo 12 gool 12 gool halka iyadana kulanka dambe ayaa go'aamin doona. haddaba kulankan isdul taagno shoodadka labada kooxood ay sameeyeen. Bayern 14 bay sameysay 5 bay ku aadisay halka Real 10 ka sameysay 4 ku aadisay. Positionada 258 wax badan leysma bahalkeen leysma dhaamin halka iyada 550 baas bay sameysay Bayern, 520 ayay saxday, 516 ayay sameysay baas kooxda Real, 460 ayay saxday. faawuladan waa 12 koornayaashuna waa 5 ya halka iyadana waa la saarnabaad moodaysay ciyaarta. aan isdul taagno xidigaha qaarkood. Bellingham 60 taabasho uu kulankan sameeyay 49 baas ayuu iyagana ka dhigay ciyaarta gudaheeda halka uu yahay 0 crosses iyo no shoots. fahamta عليه shay kullu kalaam laba taakala sidoo kale ya iyo darablinada laba bandhiga garoonka waa lagu kala qurux badan yahay. habeenka cross bay laakiin aad moodaysay in muhiimadiisa iyo cabqarinimadiisu ay shaqaynayso ninka garbaa dhaadheer. Harry Kane Real Madrid waxa uu ku sameeyay 5 shoot oo uu goolka isku dayay inuu toogto, 1 gool oo rikoodhaha oo kaliya ayaana uu ku guuleystay. Vinicius Junior waxa uu dhaliyay goolkii 20aad ee seasonka, waxaanay ka dhigan tahay in xidigan laftarkiisu bandhig qurux badan uu sanadkan ku jiro. tirada guud ee kooxahani koobo ku kala haystaan Bayern 77 koob ayay haysataa. haddii ay kan u sii baxdeen Allahumma labik nimanka Real 79 koob oo weligood daldalan jireen jaambaha markay maqlaan ugaba sii daran. runtii waxaanu arkaynaa waxyaabo badan oo kulankan isaguna uu ina tusay, taasoo ka dhigan Toni Kroos muhiimdisnimadiisa iyo afkaaraha kale ee labada kooxood ay kala adeegsadeen. Bavaria iyada iyo jamaahiirteedu way gaari waayeen guusha ay damacsanaayeen walow ay ismahadiyeen iyadoo gacantooda ku jirto. halka Real Madridna ujeedkeedu inta badan uu yahay markay aweyga tahay haddii ay 3 dhibcood heshaan inay soo qaadato inta kalena ay ku dadaasho in garba siman lagu kala baxo qalcadda go'aamintu noqoto midda hoomkeeda. si kastoy tahay wala kala ogaan doonaa Arbacada ayaana bur iyo biyo loogu kala bixi doonaa. habeenada kale uga duwanaa ayaana ahayd labada kooxood. Bayern hantida kaliya ay hubtay inay u hadhay haddii ay guuleysato waa jaambaha. horyaalkii Bayer Leverkusen baa la carrawday, boqolkii laftarkiisa waa hore ka carraabeen. sidoo kalena wax kale koob oo aan ahayn champion ma jiro. Tuchel Bayer sanadkan inay koob la'aan ku carraabaan waa suurtagal, walow xidig goblanka ah koobkuna uu ciyaarayo Harry Kane isaga laftarkiisana halkan koob uu soo doontay. de halkiina waa tan wixii kala galbade kanun baa hadhay. waynu eegi sida xaal noqdo. xubintu waa kariskii iyo kala aadinta anigu waxaan ahay Maxamed Tirike. intaynu xubintan midda xigta ku kulmi doono saaxiib inta ka horeysa sida ayaa maana Allah. Smart Dental Clinic ku dhoola cadee $100 kaliya qiimo dhimis 40% ah. Smart Dental Clinic xarunta daaweynta afkiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay ku samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran sanad guuradii afraad awgeed. adeegyada qiimo dhimista lagugu sameeyana waxaa kamid ah birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo kaliya $100 oo aan wax dambe lagu weydiinaynin. haddaba qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban, dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin. sidoo kale Smart Dental Clinic waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh. hamogaanin Smart Dental Clinic oo ku taala gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan agagaarka Hotel Cali Jirde ama markaad u dhaqaaqdo wadada dheer ee tagaysa xarunta dabdamiska inta aanad gaarin waxay ka soo